السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برامجكي إجلان شو أينو هبين والبا حلقان وكلا أينو طبعا هودا كوكلانو برامجيدو كلا قيمة بدن برامجيدو كلا حيسة بدن تطبعات كان برامج كان إدين هيو طبعا وبرامج آدو قيمة بدن وبرامج عن سفر دير أصوغ قلي وبرامج عن كتاقناي أو تيفيق RTN طبعا وكتاقي قبل كوقوي بري أدل كان كينيا مقالة غارسا magaalada Gaarisa waa magaalo aan dabcan iglan ahaan aad uga soo helay waa magaalo qurux badan jawi degan shacabweynaha ku dhaqan na waxaan leeyahay sidii sharafta lahayd qiimaha lahayd aad noo soo dhaweyseen marka aad baan idinku mahad celinayna sidoo kale dhalinyarada reer Gaarisa ee toddobaadkan barnaamijka igala qayb qaatay ee aqoonta iyo su'aalihii aan weydiinayay isla markiiba ka jawaabay aad baan iyagana ugu mahad celinaya toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari dabcan ayaanu shaqo u tagnay anagoo team dhan oo RTN isla markaana aanu ka qayb galaynay caleema saarkii barasaabka cusub علي بن قرني طبعا أنا قلنا هالكاس وحن كل مدليرة عاد وقيمة بدن عاد وشرف بدن أو برامج كتطبعات كان إجل قيب قادن دونا سؤاله هي وحى إسداف سنة يو وان إدين سودين دونا لكن ما مركي لبعض أيام برامج كصدياري رير جارسة استشرفت قيمة على طبعا أي نوجسو دويين مجال الجارسة وقت هاي هست وجوه رئيسة طبعا عن ربو إن برامج كنا ده قاضو حبينا عاوا عن كفره ودان تعصب oo dhawaan u soo qaaday fanaankeenna weyn Cali Dhaanto dhaantada waxa la yiraahdaa qudha Gaaris bay Kenya oo dhan wada qiimeynayaan dabcan Gaaris loo qaaday gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya maadaama ay reer Gaaris iyo shacabka reer Gaaris iyo madaxda reer Gaaris ay si qurux badan nagu soo dhaweeyeen barnaamij qurux badan aan ka soo sameeyay oo dhalinyarada reer Gaaris aanu mahad celinayo heesaha aan u soo xulay ayaa toddobaadkan aan rabaa inaan ku soo qaado dhigo oo markaas aan u soo xulay qudha Gaaris bay Kenya oo dhan wada qadarinaysaa iyo Cali Dhaanta daawasho wanaagsan وقتها داوديال عن هستاس على دانت إيو قد جارس بيو هستا قروحة بدنه ككونه إيه كدا على جارس لوجو أماني مركلي وحنا محلي الدمان داودياش كحران RTN إيو طبعا برامج كإجلن شو إيميل والبيجلا صحيح دا قف كست إيميل كستو تشوجو عدسجيسا طبعا وتحكي دونا وحتى فريمة عادو فربضن هسا عادو فربضن أو هل كان لقى سو جود بيي إيو طبعا برامج ليلة سو وذاقيو عادو فربضن وان هيا قف البا يميل شو تشوجو انتبه وحن شعلها إن قنعية أو طبعا مركزي سجنا هالكيس كورالي قليو وقت هاي تطبعات كان هذا برامج كان عن سفر كوتيجي مجال كستا أو سومالي لهذا هي يميل كستا وحن شعلها طبعا إن برامج كإجلن شو عن kala soo qayb qaato oo tago oo ka soo diyaariyo balse toddobaadkan waxaan nasiib u yeeshay inaan magaalada Gaarisa gobolka Waqooyi Bari oo in badan aan ku hamiyay dabcan inaan tago oo aan soo eego magaalada Gaarisa ay tahay markii labaad ee dabcan aan barnaamijka dhalinyarada reer Gaarisa la soo kulmay haddaba barnaamijka toddobaadka su'aashan aan ku soo qaatay magaalada Gaarisa su'aasha hore waxay tahay Gaarisa maxay caan ku tahay magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari maxay caan ku tahay dabcan dhalinyarada ayaan isla wadaagno isla falanqaynay oo dhalinyarada su'aalihii ay dabcan kaga jawaabeen intaan ka hor dhicin daawasho wanaagsan daawadayaal halkani waa magaalada Gaarisa dabcan barnaamijka Iglan Show iyo toddobaadkan waxaan ugu talagalay inaan halkan ka diyaarno oo dabcan dhalinyarada ee reer Gaarisa aan toddobaadkan su'aalo weydiiyo dhalinyaradan dabcan برامج كإجلن شو أيه داودان تيفيق RTN أيه داودان أد بيجوحرينهن that's why أنا وقد يارنا يا برامج كتطبعات كان يجارس أيه إسكالك كونتك اسمه ملك جارس قبل كوقي بريدل كان كينيا طبعا دلنيرادني ودلنيرادا تيفيق كحران ودلنيرادا رير جارسا ودلنيرادا برامج كإجلن شو آد كوحي سيسا طبعا سؤالها تطبعات كان وحرب إنا نكبل أبو ولا المقعد إيشكس أنا سلمان عليدا سلمان وسودو برامج كإجلن شو بان ربع تطبعات كان يجارس إن أديك كابل أبو أنا ورطة ما أصلاً ساتون سوديس سودو ورطة Gaarisa لا مشان هاي إم بدن أنا ورطة TV ذا كذا هاي لكن سنكون من ولا سئيم ملايين يا سئيم ملايين أداي مركان كوار كورتنا وانكو يركلي وانكو يرفع عمل ويرفع أنت عمل هاي مركي ما أنا يرجعنا إجلنتا وانكو صار قبتي كسودو Gaarisa هاي كابو ما صنتاي ما شاء الله عضبة وما صنتاي أدبن كوسر وينيا إن أنكو فرح سنة وحرب سؤال شو جوه الرئيسة إن Gaarisa محي عنكو تاي يا Gaarisa محي عنكو تاي Gaarisa محي عنكو تاي نودرت
واتأد بقى محسن كره ولا على سردو وعندها عادي عاد هي كسردو برامج إنجليش شو يتطبعات كانوا جالس وعندها هاي مجال قرطة سلمان مجال أنا كل شيء كسب برباري مركا والله مجال قرطة وشين تاي هذا كله وأنا ما سنتاي دائما عاد وقت أنا كلها أنا نسيسي أو أنا هالكن تطبعات كانوا برامج كديارنا برامج كديارنا يسوع marka wallahi aad u dhowda horta ku soo dhaweynaa waa tahay barnaamijka rabayna hore u sii galno gaarisa caan maxay ku tahay gaarisa wallahi horta ablashadana ka dhashay marka caan ku tahay tada kale waa magaalo degan oo kasto jabigeeda iska kulliin maxay caan ku tahay waxay caan ku tahay mitiraan adi meelaha fanka iyo asaas iyo abla quruxda badan aad baa u mahadsantahay waa tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa dalmar waan ku soo dhaweynaynaa imaanshada imaantay gaarsa annaga waxaan caan ku nahay ganacsiga dhalinyaro ahaan hadda anaga waxaan caan ku nahay kubadda cagta yaan ciyaarana yaan caan ku nahay shaabana shafka duwane furo magacayga maxaa la magacayga maxaa la shaabana shafka duwane from guro staff America ka soo baxay gaarsada xaalad badan horumar ku gaarnay waxaan maanta bulshada aan maxaad ku tiim baan idinku oori horumarka waa iyada waa sheeko kale magta maxaan aan ku naanay waxyaalo badan hadda la soo koobi karin dadka ka shaqeeyada ilaa ay qoraxda noogu dhacay oo maleene waxyaalaha aan si sheegi karo ma si fahmin karo waan la dhuumanaa aad baa u mahadsantahay hay gaarsan ku soo dhaweynaya aniguna walaalaad ma ku qanacsanaynaa soo cad garata ma maxaan aad u xiiseynaa barnaamijyada soo dayso oo kamid ah macaalaha heesaha ayaan aad u xiiseynaa gaarsan waxa caan ku noqoto in aad maanta imaatay anigu maanta barnaamijka England show dhamaan oo dhameystiran ay halkan wada imaadeen ayaa caan ku tahay basaas assalaamu calaykum dhammaan bulshada waan salaamaya magacayga waa Superkeefa Qusrayd Dalnurshe oo ku nool magaalada Gaarisa waxaan ka hadli rabaa horta waxaan weydiisay magaalada Gaarisa waxay caan ku tahay waxa caan ku nahay horta af Soomaaliga oo la qalqaldo midda koowaad midda labaad maxaa way jawi degan oo aysanaa alxamdulillah wax dhibaato in ku noolno waana ku mahadsantahay sida ku soo gartay magaalada Gaarisa gacan furna ku soo dhaweynayna aad baa u mahadsantahay waa tahay Gaarisa caan waxay ku tahay gabdho aad u quruxsan iyo wabiga marka iyo qabahan dhismada iyo gabdho aad qurux badan oo joogan Gaarisa idin joogan ma sha Allah aad baa u mahadsantahay magacaygu waa aniga aan isteexo oo joogto magaalada Gaarisa Gaarisa arday wiilasheeda leedahay ma xaraba kamarada inay isla arrin wajigeena xabiibti sida magta qurux badantay haye Gaarisa waxaan ku naana horta waan iska shidanahay waa wiilashani ay waa iska shidantiin haye dad shidan baan ahay ma sha Allah waan kugu soo dhaweynaa waxaan caan ku naana waxyaalo badan baa jirta oo hadda aan soo koobi karin balse mar kale ayaan sheegaynaa aad baa u mahadsantahay caan waxay ku tahay buundadan wabiga Tana River suuqa xoolaha arbacada oo meel kasta xoolaha ka yimaadaan waxay kaloo caan ku tahay ma sha Allah aad baa u mahadsantahay aad bay u mahadsan yihiin dabcan Gaarisa maxay caan ku tahay dhalinyarada aad bay inoo qiimeeyeen aad bay ii soo dhaweeyeen dabcan qaar ba xataa wixii madaba barnaamijka England show iyo TV-ga RTN oo halkan dabcan noogu yimi Gaarisa saasay caan ku tahay aad baa uga mahad celinaya sida quruxda badan ee ay markaas barnaamijka dhalinyarada igala soo qayb galeen anigana sida ay ugu faraxsan yihiin si ka badan ayaan ugu faraxsanahay dabcan TV-ga RTN waxba ugu talagalay gobol kasta oo Kenya kamid ah iyo meel kasta oo Soomaaliya joogto inay markaas barnaamijka dhalinyarada uu kobciyo oo dabcan halkan aan ugu soo bandhigno waatay mar kale waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada igala qayb qaadatay dhalinyarada markii aan su'aalaha isdhaafsanaynay aan wadiyo Gaarisa maxay caan ku tahay dabcan Gaarisa waxyaabo badan bay caan ku tahay gobonimada caan ku tahay buuntada Gaarisa caan ku tahay balse dhalinyaradii su'aashii may asiin balse mar kale waxaan leeyahay su'aalo kale oo ka khatarsan ayaa dabcan soo socda oo aan toddobaadkan barnaamijka Gaarisa ugu talagalay oo aan maadaama aan safar dheer tagay oo aan halkaas Gaarisa dhalinyarada aan isleeyahay toddobaadkan reer Gaarisa inta kale ee Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dabcan waxaan jecelahay inaan tago oo ka qayb galo oo barnaamijka dhalinyarada aan ka soo qayb qaato waa tahay aad bay u mahadsan yihiin ka rawaadana laba saar